Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan walaalaha kanaalka Baxnaanshe ee ku xiran. Aad baan ugu mahadcelinayaa asxaabta kanaalka ku xiran ee igu dhiirigelisay inaan kanaalka maanta inaan dib u soo fadhiisto iyo kommentiyada quruxda badan. Waxaan go'aansaday inaan dib uga soo laabto muddo 1 sano kadib kanaalka, waxaana horey u soo geliyay dhowr iyo 10 fiidiyoo oo ku saabsan barashada luqadda Carabiga. Dhammaan walaalaha horey ila socday waxaan u diyaariyay 2 koorso oo kala ah ku hadalka luqadda Carabiga iyo akhriska iyo qurxinta farta Carabiga. Qofkii u baahan waxa uu kala soo xiriiri karaa Gmail-ka hoos yaalla. Muddo kadib waxaan go'aansaday inaan kanaalka ku soo gudbiyo anigoo tixgelinaya asxaab badan oo iga codsatay codsigooda kanaalka inaan kusoo gudbiyo mowduucyo kala duwan sida taariikhda, dhacdooyinka, arrimaha bulshada, luqadaha iyo sida Carabiga anigoo tixgelinaya codsigooda inaan kusoo gudbiyo ayaan go'aansaday mowduucyadaas oo bulshada faa'iido u leh iyo anigaba. Anigoo aan ka tegin walaalihii intooda badan igu soo biiray kanaalka barashada luqadda Carabiga, waxaan u diyaariyay koorso ku saabsan barashada luqadda Carabiga iyo akhriska iyo qoraalka farta Carabiga. Insha Allah fiidiyoogan fiidiyoo xiga waxaan kusoo gudbin doonaa ugu dhaqsiyaha badan ee aad ku baran karto luqad kale. Intaa fiidiyoogan fiidiyoo xiga intaan ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.